munaasabadan xiriga looga jarayay jaamacadda cusub ee Baydhabo International University oo laga xirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay waxaa ka qayb galay munaasabada furitaanka jaamacadaasi gudoomiyaha gobolka Bay macallimiinta jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada Baydhabo professoro qaybaha kala duwan ee bulshada iyo baxda jecel barashada tacliinta ugu horeyntii ayaa waxaa furitaanka jaamacadaasi iyo hadafka laga leeyahay ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Baydhabo International University Professor Abi isagoona sheegay in ahmiyadda laga leeyahay hirgelinta jaamacadani ay tahay in sare loo qaado barashada tacliinta jaamacad oo wax laga baranayo inaad support gareysaan insha Allah anagana waxaan balan qaadaynaa sida gudoomiyaha aqoon-yahanada Mr. Fawzi oo noo sheegay inay noqonin jaamacadda macnaha inay jaamacad magac leh leedahay gudoomiyaha gobolka noo sheegay إسحاق إدريسنا ونوشة خير الله سيو إن شاء الله جامعة نتي وحي صحة دونتا خلطات لصوت أركيودن قيمنا صوص مينه صار لدين شيء الله وصل صنع يالله سو فكرة إن جامعة نفرو مركا خلطات كي أو حر لصوت أركي إن نصحنا sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Professor Mukhtar oo isagu ka mid noqon doona macallimiinta jaamacadaasi isagoona soo bandhigay fakultiyada lagu baran doono jaamacadda fakultiyadaas ma bankooriye كليد والبرشلة المربى اللي تاها ديبارتمنتي اللي تاها قيامش الجديسين اللي تاها تبورك مكموغدا لكن قيام قاسمي بكمدة إسلامي استادية كمدة مثل دراسات إسلامية ساسوكا المربى بكمدة سوشيال استادي مثل علوم الاجتماعية كمدة فاكولتي اوف إديوكيشن هوسكويان بيولوجي كيمستريا هي هوسكويان فاكولتي اوف إديوكيشن ساسوكا المربى هوسكويان ماث أند فيزيكس هي هوسكويان فاكولتي كلامات وميلوك حسن بيبوها فكرت تيجي لبعض ميلوك خصوصا ما يبغاها medicine and health science كاسي ما يبغاش كويس يو public health يو nursing يو nutrition يو medical laboratory hospital ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Bay mudane Cabdirashiid Abdullaahi Maxamed LFC oo jaamacadda xaraga ka jiray ayaa isagu ku tilmaamay guul weyn oo xilligan laga hirgeliyay magaalada Baydhabo isagoo baxda jecel waxbarashada gobolka Bay uu ku tilmaamay in ay ka faa'iideystaan jaamacadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo iyo jaamacadda cusub ay soo dhaweeyaan dabcan guud ahaan gobolka hadal aan ku taan walbarasho gobolka bulsho hoobiye wala barana dhibaatooyinka yeelata maadii diiniba meel raay si walbadana kulmna jahliga dhibaatooyin ku sleeyay walbarasho laanta dhibkuusni shayna u naftaan hoobaana deegaamada eedan ugu saameyntu sidii nooc kasto haata أساسي الدينية هريك والبرشة إذا هالنوايا وأنا أفكست أوديعان جويت كورياني نيوستي كوناغدا jaamacadda Baydhabo International University ayaa ka mid noqonaysa shanta jaamacadood ee laga hirgeliyay gudaha magaalada Baydhabo ayadoo sanadkii 2011 ilaa 2015 oo gabagaba marayo jaamacaduhu ay gaareen ilaa iyo 5 jaamacadood Maxamed Aadan Socdaal TV-ga dawladda Jubaland magaalada Baydhabo